Assalaamu calaykum asxaabtayda qaaliga soo dhawaada. Maanta waxaan sameysanaynaa pizza. Waxaa halkan inoogu diyaarsan hal bakeeri oo bur ah. Waxaan ku soo darsanay qaadada haafkeeda oo baking powder ah. Waxaa kaloo ku soo darsanaynaa qaadada afkeeda hore oo baking soda. Baking soda waa ka maarantaa haddii aadan haysanin. Muhiimaddu waa baking powder. Sidoo kale waxaa ku soo darsanaynaa sokor hal qaado. Qaadada yarta isticmaalaya marka la halka qaado ugu weyn waxay u dhigantaa laba qaado yar ah. Sidoo kale waxaa ku soo darsanaynaa cusbo xoogaa mooyo aan ku tuntay filfil ayaan cusbadina ku tuntay. Cusbadii shiidneeda aga dhamaatay saas darteed madowga u yeelatay cusbada. Waxaan isku labeynaa burkii waxyaabihi isku soo darsanay si ay isku dhexgalaan. Marka koowaadna saas samee mar walba oo aad sameysanayso ama aad wax qasanayso qaybta qaleelka ah isku lab. Waxaa kaloo ku soo darsanay 3 qaado yar ah oo saliid. Almuhim waa 2 qaado oo waaweyn oo saliida laga rabaa. Qaadada isticmaalaya qaadada yarta waaye. Marka waxay u dhigantaa 2 qaado waaweyn 4 qaado oo yar ah. Qaadada yariista dambe oo 3 ka hartay gadaal dambe ka isticmaalaya. Waxaa ku soo darsaday biyo oo aan rabo inaan ku qaso pizzaha burkiisa ama cajiinkiisa. Waxaa kugu filan bakeeriga shaaha haafkiisa. Caano waa ku qasi kartaa. Biyana waa ku qasi kartaa. Biyaha ani hadda aan isticmaalay xoogaa qandac waaye. Iyagoo caadi ana waa ku qasi kartaa. Muhiim ahaan inaad qandac ka dhigtid. Marka waa xashaya si fiican u xashaya. Kuley ma aqaan burmandaasiga markaan soo gelinayo filaya mas muuqaalo kale inaan soo geliyay si qaabka wax loo xashayo. Markaas waa jarjari jiray muuqaalka laakiin maanta ma aana jarin. Waxaa rabaa inaa ila aragtaan sida uu noo noqonayo. Markaa xashayna burka iyo sida uu isu kala dhigdhigayo. Hana isku dayin burka hadda sida aan sameynayo markuu kuu noqdo. Haddii uu gacanta kaaga dhigdhiga aad dareentid inaa biyo ku dartid. Hadda waxaan rabnaa si fiican inaan u xashano bur fidiska ama qoriga burka lagu fidiyo ayaa waxaa ku soo shubanay bur. Si fiican ayaan u xashaya waa u jeediin. Gacanta meeshaas ay idin tilmaamay iyo faraha waxaa ku qabanaysaa cajiinka waa ku jiidaysaa. Burkana meesha kala goyska gacanta ayaa waa ku riixaysaa si uu isku dhexgalo qaybta gudaha ku jirta iyo qaybta banaanka taal intaba. Haddii uu kugu adkaado oo aad wadi weysid oo gacanta kaaga dhigdhigo xoogaa saliida lagu soo darsadaa. Kisyar marnaba isku dayin biyo inaad ku dartid. Marba hadduu burka isu kaa qabsado oo biyo aad ku dartid fashil waa wax walba haddii koo soo bilaabay kugu noqonaysaa. Waa isla fahanaa filaya. Marka saasta ah xashayna ku soo dhameynayna anaga aan ku wadayna mana jiray kaamirada waa u jeediin si fiican u wareejinay mana ku darsanayna soo maahan leebito ama qamiiriso kuma darsanayno oo haddii aad si fiican u xashtay haddii aad xashinba uu kacaayo ama burka uu fuuraayo saas hadda soo yeelanay. Waxaan ku dhex ridaynaa baaquliga. Waxaan ku dabooleynaa bacda oo lagu daboolo waxyaabaha la qamiirina. Haddana waxaan sameysanaynaa suugadii pizzaha ama pizza sauce. Waxaa gacanta ku haya u jeediin hal xabo oo yaanyo sibirsaan oo aad u weyn. Hal xabo oo basal dhexdhexaad ah. 3 xabo toon ah. Toonta waxaa isla arkaynaa qaab fudud oo aad qolofkii ayada u kala fiiqi karto ama aad u kala reebo karto. Xoogaa way dhib badan tahay markii toonta la fiiqaayo. Hadda u jeediin qolofkii iyada caadi u kala baxayaan. Markaad tiraahdo waa fiiqaya aad u dhib badan tahay inaa cididaa ku fiiqdid. Marka qaabkan tijaabi bal waxaan rajeynayaa inaa ka faa'iidi doonto haddii Ilaahay idmo. Waxaan soo jarjaranay yaanyadii iyo basashii iyo toontii aan isku soo darsanay. Waxaan ku darsanaynaa bakeeriga shaaha haafkiisa ama haaf wax ka yar oo biyo ah. Biyaha iska badinin. Waxaa la rabaa biyaha yarka aad ku darsatid inay kugu bislaato yaanyada iyo basasha. Waxaan sugaynaa inta nooga bislaanayso. Muddo waxay noo saarnay 7 daqiiqo ah. Way noo bislaatay oo basasha ka dareemaysaa biseelkeeda. Xoogaa yar waa qaboojinaynaa kadibna waa shiidaynaa. Way noo soo qabowday. Dheecaankaas yarka oo ku jiro waa ku shiidanaynaa. Haddii biyo badan adiga ay kugu jiraan ama biyihii uusan si fiican u nuugin yaanyadii iska kala yaray biyaha. Haddii kale waxay kugu dhibaysaa markii aad dabka ku celiso. Ileen dabka ku celi rabnaa mar labaad si fiican u karinaynaa. Marka yaanyada biyaha inay ka gursadaan ama biyaha inay dhameysato waqti ay kaaga qaadanaysaa. Biyo badan haddaa ku shiidid iska yaray iskana ilaali biyaha faraha badan. Waa daboolaya xoogaa way ugu soo fafaniinaysaa.
biyaha ku jiraan keenayo. Saliid yar soo qandacsaday. Waxaan sameynayaa marka yaanyadii oo aan soo shiitay ayaa saliidii ku darsanayaa. Adiga muddo waxay ii saarnaanaysaa iyadana intii biyaha ay ka dhamaanayso 7 daqiiqo ilaa 10 daqiiqo meelahaas. Pizza sauce-ka dhan waxaa lagu diyaarinayaa haddii u badato 15 daqiiqo, haddii u yaraato 10 daqiiqo meelahaas aa lagu diyaarinayaa asaga dhanbo. Marka waxaa sameynaynaa waa labeynaa si ay isku dhex galaan yaanyadii iyo saliidii. Isagoo diyaarsan wuu jiraa pizza sauce-ka supermarket-yada laga helaa. Waxaa leedahay pizza sauce araba oo kaliya waa lagu soo siinaya sauce jal ah. Biyihii marka xoogaa ay kasii dhamaatay yaanyadii waxaa ku soo darsaday kalarka cuntada lagu darsado nooca guduudka ah oo wax yar ah iska badanin kalarka kaliya waxaa ka rabnaa guduud inay noo siiyo. Waxaa kaloo ku soo darsanay filfil iyo cusbo isku tuman. Kalarka haddii aad heli karin ama aad haysanin waxaa ku bedeli kartaa yaanyo shiishiid qaadada afkeeda hore ama qaadada oo half ah. Haddii kalena yaanyada sideeda ku diisi kartaa. Waxaan rabaa guduudka yaanyada ee leedahay hadda maahane xoogaa kaloo yar oo yaanyada guduud inay igu darsanto ama sauce inuu igu darsamo. Marka si fiican isugu labaysaa haddii aad ku darsato shiishiid iyo haddii aad ku darsato kalarba si ay isu ka dhex galaan. Hadhow wadaad si fiican u labin dhinacna guduud saaid ka noqonay dhinacna yaanyada caadiga ahayd ka ahaanaysa midabkeeda. Marka si fiican u labtid isku day. Waxaa ku soo darsanayaa cusbadii iyo filfishii xoogaa yar waa igu yaraatay. Dhadhan ahaan kala jeedaa waa igu yaraatay. Mar labaad ku soo darsaday. Dhadhankan iska sax ha iska badinin hana iska yareenin. Kuley waa fahmaysaan cunno qiyaas ku socotaa. Marka qiyaastaas ku soconeynaa. Filfishi muhiim ma ahan. Xoogaa way carfinaysaa. Dhadhan oo qurux badan waa u yeelaysaa. Ku dadaal inaad ku darsatid haddii aad ka helinna waa caadi. Saas ugu noqdo u jeedin. Yaanyada jibis iyo waxaas ma ka rabo. Markii uu biyaha si fiican uga dhamaaday uu dhigtay yaanyadii waxaa ku soo darsaday qaandada half-keeda oo sokor ah waa u jeedin. Sokorta macaan yar u yeelaysaa iyadana ha ka badinay sokorta hal qaado ma aha. Qaadada half-keeda oo kaliya bas ayaa ku soo darsaday wuuna noo diyaarsan yahay waa ka degsaneynaa. Waxaa kaloo dabka soo saartay saliid. Waxaa rabaa inaan sameeyo white sauce ama qaybta cadaanka ee pizzaha maadaama aan isticmaaleynin cheese ama farmaajo mozzarella cheese-ka oo lagu daro maxaa kala jeedaa pizzaha. Hal qaado iyo waxaa isticmaalayaa bar oo bur ah. Hal qaado kugu filan. Ani barka waxa ugu darsaday wax kala ku isticmaal rabaa laakiin hal bakeeri oo bur ah oo pizza da sameysanaysid hal qaado oo bur ah kugu filan. Burka waxaa sameynaya saliida si fiican isugu labaysaa inuu burka is dhex galo. White sauce-kan supermarket-yada laguma gado guryaha lagu sameystaa si caadi ah. Waxaa ugu talagalay booskii cheese-ka ama farmaajada inaan ku isticmaalno isagana aad u macaan yahay. Waxaa ku soo darsanaynaa marka caano bakeeriga shaaha oo buuxo. Qiyaasta waxaa iskula cabiranaysaa hal qaado oo bur ah hal qaado oo waxaan kala jeedaa hal bakeeri oo caano ah saas is qiyaastida. Labitaanka kama joojinin muddo ayaan labayay. Burkii saas oo isku dhex galay uuna ku soo baxay. Waxaa ku soo darsaday haddana filfil iyo cusbo isku tuman si dhadhan uu ugu yeesho. Waxyaabihii kale oo caraf ah haysta ku darsan kartaa. Hadduu ahaan lahaa basbaaska shiidan, haddii uu ahaan lahaa waxaan kala jeedaa huruudda. Waxyaabihii kaleeto oo bodada ah oo carafta oo lagu darsado cuntada waa ku darsan kartaa. Laakiin aniga hadda labadaas haystaa labadaasana ku darsanayaa. Haddii markii kugu horeysay ay tahay tijaabi bal fiiri sida uu ku soo baxaayo. Insha Allah waan rajeynayaa inay ka heli doonto. Waxaa ku soo laabanay ama aan sameysanaynaa ama aan fidsaneynaa burkii pizzaha oo aan ka maqnayn ilaa iyo 40 daqiiqo camal. Waa u jeednaa soo ku soo baxso u jilcan yahay u jeednaa maahano. Gacanta ku fidsaneynaa oo kaliya. Qori bur maal dhahaa. Ma ku fidsaneyno marka waa u jeedin qaabka uu noqday. Tartiib taawada saaranaysaa ama sheyga ku dubanaysid. Waxay rasaas ugu fidinaysaa. Wuuna jilicsan yahay u jeedin aadna u fidisid laga maraw oo qafiif oo noqon sida sawaayadii oo kale. Dhinacyadaas saas farta ugu gudgudaysaa ama wax kale ah haysatid heli kartid sida
qaado kaleete qaybteeda dambe ama farkeeto. waxaa sameynaynaa marka intaan wax kusoo dardarsanin ka hor waxaa soo qaadanaynaa farkeeto. saasaa ku leenahay haddaa ujeediin. sababtaas loo dhahayana waxay tahay biidsaha haddii dabka la saaro maadaama bur uu ka samaysan yahay waxaa laga yaabaa inuu soo fuuro ama uu soo kaco. si fuuritaankaas ama kicitaankaas looga ilaaliyo daldaloolaa loo yeelayaa oo rootiga ama biidsaha burkiisa ka neefsado. waxaa kusoo darsanaynaa pizza sauce-kii anaga aan sameysanay. waxba ma dhaamayaa kan supermarketka. pizza sauce-kaasaa kusoo darsanaynaa. in alaali intii aan sameysana kusoo darsanaynaa. haddaa doontid kala reebo ama kala yareyso. aaduna uu macaan u yeelayaa uu maceynayaa. sidoo kale waxaa kusoo darsaday burkii kaleenta ama white sauce-kii aan sameysanayay. kor qofkii ka arka muxuu isdhahaa meeshaan waxaa ku jiro cheese ama farmaajo. hadduuse ogeyn waayaa ilaan waxaa isdhexgalay qaybtii guduudka ahayd oo pizza sauce-ka iyo burkii isdhexgaleen. kisaa ka reebanaya burka ma wada isticmaalayo. waxaa kaloo kusoo darsaday aniga aan samaystay gooni bardha yaraan shiishay ama shiilay. bardhadaasaa korka ugu soo shushubay. adiga waxyaabaha kala jeceshahay ku darso. muhiimna ma aha bardhada inaad ku darsatid anaa jeclaystay. sidoo kale basal aan si dheer usoo jarjaray iyo barbarooni ayaan si teel ah ama kala dheer dhigdhigayaa. intaas haddaan samaysano wax kale noogama dhino jiisna noogama dhino soo ma ileen maba ku darsanayno marka hore. dabku wuxuu noo soo saarnaa muddo 20 daqiiqo ilaa iyo 30 daqiiqo. hadba waxaa adiga aad ku karsanaysid ama ku dubanaysid ku xiran tahay. foorno, burjiko caadi ah, waxaa loo yaqaanaa kuukar. intaba waa lagu karsan karaa. adiga 20 daqiiqo ilaa 30 daqiiqo. ugu yaraan 20 ugu badnaan 30. intaasaa la iska rabaa. haddana waan jarjaranaynaa waa noo jeediin. waxba kama tuugayo pizza oo lagu daray muxuu ahaa jiiska ama farmaajada lagu daray. waxba kama tuugayo waa ujeediin macaan waana soo bislaadeen. wixii korka aan ka saarnay bardhada hore u bislaad iskaba dhaafbo. labada kalena waa dareemeysiin. saasoo noogu soo baxay. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.